dagaalada magaalada muqdisho ayaa waxa ay galeen maalintii saddexaad iyada oo dadkuna ay naftooda ugala cararayaan hubka meesha ka dhacayo oo aad u culus warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada jabuuti inooga soo diray wariyahayaga xasan bariise oo hadda jabuuti isagu ku sugan xasan. sida ay BBC-da u sheegeen dad goobjoogayaal ahi waxa uu dagaalka maanta oo bilowday wax yar kadib saqri dhexe ee xalay ahaa kii ugu darnaa ilaa iyo 16 sano ee la soo dhaafay goortaasoo dadka reer muqdisho ay hurdada kaga soo salaleen gantaalada xooga badan ee loo yaqaana BM-ka oo ay magaalada la dhaxayeen ciidamada Ethiopia. ciidamada waxaa ka horjeeda dhalinyaro qabiile ku abaabulan oo u badan dadka reer muqdisho kuwaasoo maanta maalintii saddexaad dagaal kulul kaga soo horjeeday ciidamada Ethiopia oo doonayay in ay magaalada ka samaystaan goobo cusub ama fariisimo cusub oo military. goobjoogayaal ku sugan magaalada muqdisho waxay BBC-da u sheegeen in uu dagaalku ugu xoog badnaa deegaanada ku xeeran garoonkii muqdisho stadium, deegaanka xamar jadiid, xaafadda xarar yaale, xaafadda tawfiiq iyo suuq baxaad iyo gubta kuwaasoo dhammaantood ka agdhow garoonka muqdisho stadium ay ku sugnaayeen ciidamo Ethiopian ah oo la sheegay in ay halkaasi ku go'doonsanaayeen oo ciidamada Ethiopian ay doonayeen in ay soo furtaan. sidaas darteedna waxa ay deegaanadaasi oo dhammi marti u noqdeen madaafiic aanan loo meeldayin kuwaasoo ku habsanayay guryaha dadka shacabku degan yihiin. goobjoogayaashu waxay kaloo BBC-da u sheegeen in goobaha ay ciidamadu isaga hor yimaadeen ay ahaayeen 2 ama 3 oo keliya laakiin ay madaafiicdu gaartay meelo aad u badan. ilaa iyo hadda lama oga tirada dhabta ee ku geeriyootay dagaalka maanta hase yeeshee wararka laga helayo dhinaca goobaha caafimaad in ka badan 20 dhinteen in ka badan 80 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kuwaasoo la dhigay isbitaalada Madiina, Kaysanay, Al-Hikma, Xayaat iyo goobo kale waxayna tirada guud ahaan 3 maalmood ee la soo dhaafay gaaraysaa 350 qof oo dhaawacyo ah iyo 150 dhimasho ah sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. sidoo kale waxa iyana jira dhaawacyo ama dhimashooyin kale oo aanan laga awoodin in laga gaaro goobaha caafimaadka oo ku xanilan goobihii ay wax ku noqdeen halka kuwa geeriyoodayna la isaga aasayo goobo aanan qabuuro ahayn. sidoo kale goobjooge ku sugan muqdisho ayaa BBC-da u sheegay in ay degaankooda oo keliya ku aaseen 7 meyd oo askar Ethiopian ah oo wax meesha ka qaadan la waayay sidaas darteedna caafimaadka deegaanka dartiisa ay u aaseen. dhibaatada dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka soo gaaray waxaa weheliya barakac aad u weyn iyadoo qoys qaxayay oo weliba baabuur watay dhinaca degmada Afgooye ay BBC-da u sheegeen in ay wadada 30 kiiloomitir oo keliya ku jireen ilaa iyo 4 saacadood taasoo muujinaysa baaxadda dadka qaxaya oo wadada oo dhan xiray iyadoo dadka qaxayana ay aad u badnaayeen. ilaa iyo hadda ma jirto wax waanwaan ah amaba wada hadal u dhexeeya labada dhinac ee ishaya waa ciidamada Ethiopia ee dadka reer muqdisho lamana hayo wax yar ah oo ka soo baxay dowladda ku meel gaarka oo sheegta in ciidamada Ethiopia ay iyadu kaalinayeen. waxay dowladda Ethiopia sheegtay in ay magaalada muqdisho ka qabsadeen dhowr goobood isla markaana dileen ilaa 200 oo qof oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen kooxaha kacdoonka ka wada muqdisho. sidoo kale waxaan weli la ogeyn inta uu dagaalkani sii socon doono iyo waxa ay natiijadiisu noqon doonto midna hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa muuqda waxa weeye oo keliya dil dadka qaar ay xasuuq ku tilmaameen marka loo eego gantaalada BM-ka ee lagu garaacayo goobaha rayidku degan yihiin burbur weyn oo magaalada loo geysanayo iyo barakac weyn oo dadkii rayidka ahaa iyadoo uu welibana dagaalkii sii socdo. xasan bariise BBC. shaqadaada riboodnimada waxaan dhageysanay caan u ah riboodkii aad ka diyaarisay warbixintii maalmihii duulaanka ciidamada Itoobiya muqdisho dhibaatada baan ay ka geysteen BBC-da aad u warantay habeenkaasi cawka oo barnaamijka wararka habeenimo u daadihinayay muddo dheer ay ku jirtay warbaahinta. maxay ahayd sababta warbixintaasi sidaasi ay caan ugu noqotay lagu soo xasuusay? runtii warbixintaasi ismalihi anagu warbixinada kale ay aad uga duwaneed marka laga reebo inay ku soo beegantay xilli uu xamar dhiig baxayo. waxaad maqli jirtay dad baa qof baa la dhiig baxaya oo xabada ku dhacna waxaas qofkaas waa dhiig baxaya markan dad dhiig baxo way dhaaftay xamar baa dhiig baxaysay macnaheedu kumanaan kun oo qaar dhimasho iyo qaar dhaawaca oo hal maalin dhacaysa magaalada dhiig baxaysay marka dad xataa way dhaaftay. xanuunkaasi jiray iyo warbixintaasi markay dadka dhageysteen ee arkayeen xanuunka dhacay ayaa isu qabtay. marka xanuunka maadaama uu ku taala aha oo isan iloobi doonin wixii maalintaas dhacay ayaa warbixintii ka hadlaysana ay saameyntaasi yeelatay oo ayadana loo iloobi waayay. ma hay wax kale ma ahayn xaqiiqo ka hadalkaas ma yahay. maxay wax ka bedeshay xaaladda Soomaaliya warbixintaas? wax badan bay ka bedeshay adduunka oo dhan bay soo jeedisay. adduunka oo dhan warbixintu kuma baxaynin af Soomaaliya oo kaliya sabab la socotay anigu waxaan ahaa wariye dhowr af warbixinada ku sameeya
marka iyadoo af ingiriis oo dadka dhan la wada maqlayaan oo cid walba hana fahmayso ayay baxaysay marka inta Soomaalida loo sheegayo ayaa afafkaas kale tan aan ku sheegay marka adduunka dhanna waa qayliyay markay warbixintii maqleen waxay yiraahdeen waa maxay deel sidani sax ma nabad samayn ma dawlad hagaajin ma ilaa ay waxay wadeen madaxweyne Soomaaliyeed baan xamar geynay oo aan ku haynaynaa waliba xoog ku lahaynaynaa marka wax shaqaynay ma anu tusaale waxaan u soo qaatay 10 aan ka bixinay meesha la yiraahdo waxa la yiraahdaa Chatham House 10 aan ka bixiyay waxaan idhi markaas wali ciidamada Itoobiya xamar lama keenin markaas waxaan ku yiraahdaa ciidamada Itoobiya in xamar la geeyaa waa khalad waayo go'aankeeda socday war waxaan ku iri ciidamo adii dawladda Pakistan ama dawladda India u dib ku dhaco oo dalka kale aad raac ciidamadiisa nabadaynaya nabad ma sameynayaan col u bay sameynayaan marka waxaan ku iri Soomaaliya iyo Itoobiyana waa sidoo kale waa laba wadan oo taariikhiyan waligood soo dagaalameysay marka ciidamada dal Itoobiya aan keenaya Soomaaliya nabad ma sameynayso colku bay sii balaarinaysaa marka waxaan ku iri hadii Pakistan lagu yiraahdo ciidamo Indiana ayaa idin nabadaynaya waxay dhahayaan xataa hadii jannada noo wadaan inaga naartan aadaynaa annaga hadii ciidamada Itoobiya markay noo imanayaan inay raadaan jannada idin geynina waxaan ku iri dadka Soomaalida waxay dhahayaan ma naarta ka roon marka sidaas darteed ayay mataqaanaa muxuu ahaay ay khalad ku ay taas ciidamada Itoobiya imaanshiyahooda xanuunkaas badan ayaa jiray